ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xaddi ka baxay magaalada Muqdisho waxa uu gaaray Garowe xarunta Puntland. safarkiisa deegaanadaasi waxaa jiray qorshayaal deganaa sida ay inoo sheegeen ila lagu kalsoon yahay inuu booqdo magaalooyin ka mid ah Puntland, dekad cusub ka dhagax dhigo Garacad, inuu ka qayb galo munaasabadda 20 sano guurada maamulka Puntland iyo kuwo kale ayaa ka mid ahaa ujeedooyinka ugu weyn ee socdaalka Xasan Khayre. markii wafdiga ra'iisul wasaaraha ay gaareen Garowe, kulamo ay la qaateen madaxda Puntland kadib maalinka xigay waa Isniinta waxa uu ra'iisul wasaare Khayre khudbad u jeediyay ardayda wax ku barata deegaanadaasi. shalay ayaana la qorsheynayay in isaga iyo madaxweynaha Puntland ay tagaan deegaanka Garacad ee gobolka Mudug kana dhagax dhigaan dekad cusub. Garacad waxa ay dhacdaa waqooyiga Mudug waxayna ka mid tahay xeebaha Soomaaliya kuwooda leh marsooyinka dabiiciga ah waana mid fac weyn. gobolka Mudug waxa uu ka dhaxeeyaa labada maamul gobol ee Puntland iyo Galmudug, waxaase deegaanka Garacad u xisaaban yahay Puntland. isla gobolka Mudug deegaanada hoostaga Galmudug waxa ku yaala dekada qadiimiga ah ee Hobyo, taasi oo hadda lagu wado in dib u dhis lagu sameeyo. mas'uuliyiinta Galmudug ayaana ra'iisul wasaaraha ku dhaliilay in dekad cusub ka dhagax dhigayo Garacad, Hobyana lagu dhabar jebinayo. Maxamed Nuur Diini waa wasiir ku-xigeenka tamarta iyo kheyraadka Galmudug habeen ka hor ayuuna KNN u waramay. Hobyana waa dekad ka qadiimisan Garacad iyo dekadahan kale waxay ku factaa dekadaha Muqdisho ku factaa dekada Hobyo, maadaama dekada Hobyo la dhagax dhigay oo dhismaha bilaabanayo. adiga lafteeda waa isweydiin kartaa sababta Garacad loo dhagax dhigayo inna maaragtay walaaci tashuushi keeni karto waa dareemi kartaa. marka intaas oo waaye walaacaasna dawladda dhexe ayaan u gudbinaynaa. marka prime ministerku inuu Galmudug dul maro ayaa xoogaa maaragtay jaraaxo iyo jiniman lagu amaahane annagoo ma diidanin horumar Puntland. xoogaa prime ministerka ayaan cabasho u gudbinaynaa oo ah inuu Galmudug uusan ula dhaqmin sidii muxuu ahay nidaam tuulo iyo nidaam degmo cawan inuu soo dhaqmin state camal inuu ula dhaqmo. ma dhicin in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu tago Garacad si uu dhagax dhigo dekada cusub ee halkaasi laga hirgelinayo. qorshuhuna ahaa inuu tago sida ay sheegeen ila ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. lama oga sababta uusan u tagin, balse waxaa shalay gelinkii dambe Garowe ka baxay tagayna Garacad madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. dekada cusub ee Garacad ayuuna dhagax dhigay. hadal uu deegaanka Garacad ka jeediyay madaxweyne Gaas ka hor daqiiqado dhagax dhiga dekada cusub ayaa waxa uu ka dhawaajiyay hadal u muuqday mid fariin u ah ra'iisul wasaare Khayre ee ka baaqsaday Garacad. odayaashu isimada iyo dhammaan meesha ka hadlay waxay ka shaqeeyeen maanta inay ahayd in ugu shaqeeyo dowladda federaalka inay timaado ka soo gasho furto dhagax dhigto mashruuca laakiin ka baaqsatay waa runtii waa dhagax dhigin anagu waqti hore laakiin in badan ayaa waxa dib la isugu dhigayay in la weyneeyo oo aanu dowladda sida sheegayay dhiig iyo dhacaanba ay Puntland u hurtay inay timaado ka soo gasho dhagax dhigto laakiin ma dhicin si darbo soo kastaa noqotay. hadda anagu barnaamijka shaqo waxa leeyahay Puntland high school haddii cid wax ku darsata awoodo dabcan inaad shaqo weeyo oo adigu samaysato. Xasan Khayre dhankiisa Garowe waa uu ka baxay waxaana uu gaaray Qardho. kulamo ayuu la qaatay dhaqanka Puntland ee magaaladaasi ku sugan. madaxweyne xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami ayaana ra'iisul wasaare Khayre u helinayay. madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay Garowe, waxaana tan iyo shalay halkaasi laga soo warinayaa inuu jiro khilaaf u dhaxeeya labada mas'uul kaasi oo ka dhashay baaqashadii ra'iisul wasaaraha ee dhagax dhiga dekada Garacad. sidoo kale siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah dhaqanka deegaanada Puntland ayaa ka carooday sida ay u dhacday dhagax dhiga dekadaasi. Cabdi Faarax Siciid Juxa, wasiirkii hore arrimaha gudaha ee xukuumaddan, ayaa qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada ku dhaliilay ra'iisul wasaaraha inuusan tagin deegaanka Garacad. dadka ka agdhow madaxtooyada Puntland iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa inoo sheegay in khilaafka labada dhinac uu ku dhawaaday inuu baaqdo kulanka golaha wasiirada Soomaaliya ee toddobaadkan oo Garowe inuu ka dhaco la qorsheynayo. Boosaaso inuu tago ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu wadaa, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in Cabdiweli Gaas uu ka biyo diiday inuu raaco ra'iisul wasaaraha. waxaana haatan xubnaha golaha wasiirada ee ka haray safarkii hadda ay ku wajahan yihiin Garowe si ay uga qayb galaan kulanka toddobaadlaha ee wasiirada Soomaaliya oo birito halkaasi ka dhacaya sida la sheegay.